فيري هذه معها مجد أرك ذي مجد وح كجر فيري ما شاء الله تبارك الله أرك أستاذ عادي معهن أبروبينا فيري فيري عليكم كسو دوادا مسوا كتشن أنا جو دب إذن كوسو نقضي عيان تنفصح يرى عن كجري بعد العيد إيه بعد رمضان كآخر كيس الدم وحياة بدل مسوا قلنين هذا لكن هذيك دي بحاجة كوجو تلاقلايا intii aan awoodo maalin dhaaf hana qata ma isbuuci laba mar saddex mar hana qata inaan idin soo gudbiyo haddii aan kaga sheekeeyo YouTube-kayga waxa uu ku saabsan yahay cuntooyinka aan sameeyay waxay ku saabsan tahay cuntooyinka sunta ee oo badan caafimaadka leh aan jeclahay inaan idin soo geliyo marmar waxaan soo gelinayaa macmacaanka oo kale aan soo gelinayaa hadda aad ka heshaan video-gayga mise haddaa jeceshiin cuntooyinka noocyo badan in idin soo sameeyo commentiga iigu soo qora commentiga aad iyo aad muhiim iigu yahay leegtana sii saara leegta sababta ee dad badan uu sii gaaraa video-yaasheena haddii aad jeclaysateen cuntooyinkayga subscribe iigu soo qora commentiga iigu soo qora aad iyo aad muhiim iigu yahay haddaa igu cusub tahay waa kusoo dhaweynayaa naga iloobin subscribe haddaa mar hore iga mid ahaan aad iyo aad idinku faraxsanahay walaalahayga mar hore iga mid ahaayeen waxaan jeclahay maalin kasta dib maalin dhaaf inaan idin soo gudbiyo kusoo dhawaada hadda maanta laakiin waxaan sameynayaa rooti aan caadi ahayn oon horeyna idinka u sameynina u maleynaa Soomaalida kuma arkin la sameeyay aad iyo aad u jeclaaday rootiga waxa ka dhigan kartaa qado waxa ka dhigan kartaa casho kale oo ku noqonaya dad markay ku imaadaan waa sameyn kartaa laakiin rooti dhexda wax kasta lagu gelinayo hadaa rabto waxa gelin kartaa hilib hadaa rabto waxa gelin kartaa digaag hadaa rabto waxa gelin kartaa qudaar kaligiisa gelin kartaa hadda maanta meeshan waxaan ku diyaarsanay waxaa meesha iigu diyaarsan kan waa kan aan ku sahan waaye kan aan jarjaray inta aan ku riday kan aan jarjaray waaye waa kan bocorkeena Soomaali waaye inta aan ku shubay laba xabo yaanyo ah laba xabo oo bataati ah intana waxaan ku haystaa digaag adii nus kiilo oo kale aan jarjaray hadaa rabto waa ku darsan kartaa hadii kale waa ku darsan kartaa intana waxaan ku haystaa usti soo isticmaal hadhow aan idin tusaaya marka burka rootiga aan ku sameynayo waxaan u baahanahay laba xabo ukun ah burkaan inta dadkiina soo u badan yahay ku xiran tahay inta laba qaad saliid aan ku shubtay intana cusbo waay marka kuwan waa isku qasaa insha Allah ila socodsan u sameynaayo insha Allah waa idinku faraxsanahay waa idin soo dhaweynaya assalaamu calaykum asxaabteyda markaad waa koob biyo kisto qandiir oo kale inta iigu jiro burkeega aan qasana hal koob biyo ah ilaa laba koob bur ah waa ilaa laba xabo ukun ah iyo jab cajiinkan qoyin hadii cajiinka qamiirkan qoyin hadaad haysan qamiirka kale oo badada halkaada ku darsanaysa intaas kugu filan ilaa laba xabo ukun ah cusbada saliidada ku darsanaysa marka saddex xabo oo kale ku noqona mise saddex pizza oo kale qiyaasteed oo kale ku noqonaya hadii dadkaaga badan yihiin waa kasii badsanaysa dhib mala wax yar markuu ku yaalo marka dad cusbo ku darsan waa kana hadda waxaan ku darsanaa laba qaado saliid oo kale cusbadaadan ku darsanaa laba xabo ukun aan ku darsanaya walaas adii wuxuu ku yaala 20 daqiiqo oo kale inuu ku yaalo way marka isku qasatid muhiimadana waxa waay mataqaana muhiimada burku waa inuu cajiinkii qamiirkiisa is wada sinaada waa cusbadiisa iyo saliid yar ku darsid cajiinka haduu si fiican ku noqdo rootiga uu ku toosa laakiin cajiinka haduu ka adkaado rootiga kuma toosay oo burka aan ku darsanaa ma sha Allah tabaarakallah muhiimada waa idin sheegay waa rootiga burka aan qasanaysid wixii oo dhan si fiican daa ku qasna oo aadna u adkaynin oo si fiican ku qamiiro ma sha Allah rootiga uu ku toosaya muhiimada asaga leeyahay hadda laba koob bur ah waaye laba koob waaweyn oo bur ah ilaa xabo ukun ah iyo laba qaado saliid ah iyo aan isku daray bas qamiirkana noo saada qamiirka saysan qaado weyn oo qamiirka kale oo budada ah ku darsanaysa rootiga wuxuu ku noqonaa ma sha Allah tabaarakallah oo rooti aan caadi ahayn oo jilaac sida doorsho oo kale kaaga soo baxa yuuna ka adkaanin jilaac wax yar ka dhig mujeedadu hadda wax yar bur ahaan ku darsanaya qalaas intaas leeyahay waa isku firiin intaas samaysanaysa wuu ku wada sameeyahay wuxuu kugu soo baxaa rooti doorsho oo kale oo aad iyo aad u macaan oo kaaga soo baxaa dadka rootiyaasha sameynaya muhiimada waxa waay sida u qasaysid waa haduu ku tooso ma sha Allah ku noqona digaagyan shiilanaya digaag iyo bataatiga hadda si fiican iskugu shiila digaag iyo bataatiga markay si fiican iskugu shiilmaan markaas yaanyada ku daraya kana digaag si fiican iskugu shiilmay iyo bataatiga yaanyada ku darsanaya laakiin iska ilaali inuu maraq ku yeesho marka hadhow lagu daraayo maraqa laga ilaalina
digaaga iyo yaanyada iyo bataatiga markay si fiican iskugu shiilo. Hadhow marka waxaa ii yaala bocorka markaan ku daro daqiiqad kadib inaad ka dejisid waaye, sababtoo bocorka inuu biyo ka yeesho ma rabo. hadda digaaga si fiican iskugu karinaa kan. hadda waxaan ku darsaday xawaajiyaalkeygaan ku darsaday hal qaado yaan shishiid ahaan ku darsanaya. waa isku shiila ayaga markay isku shiilmaan si fiican iigu bislaata arka dejiska uu soo dhow yahay waxaan ku darsanaya marka waaya bocorka oo aan jarjaro labada nooc ahaa aan ku darsanaa. marka badanaa waxaa iska ilaalinaysaa inuu biyo badan ku yeesho, ka ilaali. waa kana hadda bocorkii aan ku darsaday labada nooc ahaa kan kanaan ku daraa hal daqiiqo kadib horaan ka dejinaya. sababta saas u sameynaya inay bocorka hadduu si fiican aada u bislaada bajaq uu noqonaya, biyana wuu yeelanaa, macaanna ma noqonay asagoo kastoo aada u bislaanin oo kale macaan. saasay ku macaan tahay suugada in lagu sameeyo. wax yar kadib waa soo dejinaa. waa kan si biyo badanna mana soo ma jeeda, biyaha ka ilaali weligaa inuu biyo ku dhalo. markay isku shiilmaan kuwaas si fiican u bislaado markaas hadda waaye bocorkaa ku darsanaysaa, waa soo dejinaysaa soo biyo lahayn. wax yar daqiiqad kadib waa soo dejinaa. waa kana uu ii bislaaday mujeeda bocorka inuu yar ceyrin yahay waa inta saa mujeeda saas asoo inaa kasoo dejisid waaye. kabsar caleentaada ku darsanaysa. aniga caadi ma ahan aan ku dhahay rootigan wuu i cajibiyey wuuna idin jibin doonaa. commentigana waa idinka sugayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. sameeya baroobeya aniga aad iyo aad ugu helo wallahi aad ugu helaan ku dhahay. marka waa kana rootiga mujeeda soo jilaac u yahay. waa kaasas inuu jilaac ahaado inuu ka adkaado ma rabo. saas oo kale inuu ahaado hadduu ka adkaado wuxuu noqon rooti adeeg oo dhagax oo kale ka noqona. waxyara meeshan ku fidsana 3 qaybood oo kala jaraya marka rootigeyga. macni rootigii 3 labada bakeeri burka ahaay 3 xabba ina u kala jartid waa. mujeeda soo u jilcan yahay. waa ka 3 qayb oo kala goynaa 1 2 3 ka dhigaa. biisa hadaa ku sameysanaysana saane u qasanaysa 3 qayb ka kala dhiganaysa marka. burkina iska ilaali yuu ka adkaan weliga rootigaaga inuu doolsho ku noqdo hadaa rabtid ka ilaali inuu dhagax oo kale kaaga adkaado rootiga. hadda hal gabalaan soo qaatay aan fidsana mujeeda isaga dhan doolsho oo kale markaan fidinay saas markaa u fidisid labada gees si fiican ugu fidisid markaad waaye waxaa ku shubanaysaa digaagaaga waxaas oo soo samaysid. marka muhiim ah digaag la inaad ku shubtid gudaha ugu shubtid. hadaa rabtid koosto mas isbanaad cagaar kaligiisa ku shubay markaas ma ku dareysid usti miskal hadii kale farmaajo wax la dhahay kuma dareysid. cagaarka gudaha ugu shubanaysa waa cunaysaa. hadaa rabtid rootiga madow waa ku samaysan kartaa hadaa qof sokor qaba aad tahay cagaarkaaga gudaha ugu shubanaysa waana cunaysaa. qadii casho ku noqona ani aad iyo aad u cajabiyay. marka saas hadda mujeeda waa tilmaamaya markaas u fidisid geeska saa ugu shubaa wax yar reebaysa afka marka hada sakiina ku dilaacin aad inta hadda saa u sameynaa. waa fidi waa kana qudaartii digaaga aan soo samaystaan gees ugu shubanaa. rootiga ma sha Allah tabaarakallah waa ka helay ani 2 jeer aan sameeyay. TikTok-geyga Snapchat-keyga waa soo geliyay dad badan iga codsadeen waxay dhaheen hideesa u sameynaysa nutus. marka saas ay idinkugu sameeyay hadda YouTube-keyga u soo gelinay mar hore aan geliyay TikTok-geygana Snapchat-keyga miisaan soonka dhexdiisa ma sameeyay. waa kana markaas saas sameeyay ustidaada ku darsanay mise farmaajo wixii loo yaqaan ku darsanaysa. waa soo duduubay marka soo duduubaysin ilaali ina aad u ka dilaac tartiib ila markuu wax jilaac way mugta tartiib soo laab. suugadi markaa soo korisin qabow aydo ku shub kasto qabow yey ka kuleel ahaan mujeeda tartiib kaas u soo laabe iska ilaali inuu ka dilaac tartiib laab. marka gabal yar reebana gabalka seera dilaacine marka hadwaay waa rooti jilaac doolsho oo kale ku noqonay ma sha Allah toona gees xasaas kaga soo laabe. geeskan waa soo laabe intaas harti marka hadwaay sakiinta ku jijeexi waa ku soo celinay. dad badan ay weydiiyeen oo idaan Snapchat-kii hindiyay markaad waxaan asar saaraysi burma maris ma marinaysi waa rootiga la ku soo laabay. waa ku soo laabay uma baahna muhiim ah in aad bur ama marisid mindidaas asas ugu dilaacsane caadi ma korna sharxaada kuugu noqonayo qurux badan waana ka helaysaa ma sha Allah tabaaraka gudihiisa. haddana hatta habka jileeciisa iyo marka saan oo kale u qasid qiyaastan hadda inay u sameeyo oo kale hadda wada sameysatid doolshad marka hadda doolsho oo kale ku noqona waxa ku samaysan kartaa pizza waxa ku samaysan kartaa rooti kale caadi oo ku kuusan ilmaha. waa kana saasa ugu soo laabay mujeedado wax inaaba marisid loogu matalagelin xabada u soo laabay oo kun iyo waxa marsanaysa marka hadda waaye kuna korka marsanaysa si masxab sawd waxa rabtid marka hadda waaye ku shubaa foornada gashanaysa korna sharxaada kugu yahay gudahana uu ku daboolaya. fikradan aad uga helay
horaan qof u sameeya malahan fikrad cusub waaye rooti cusub waaye aad iyo aad ani aa helay sameeya haddaa ka hesheen commentiga iigu soo qoro commentiga muhiim uu ii yahay marka rootiyadan marka ugu horeeya waa ani aan sameeyo qof kaloo sameeyo weli ma arkin oo Soomaali anigana aad iyo aad ugu helay fikradooyinka jadiidka ah insha Allah waa idin soo gudbinaa haduu Ilaahay yiraahdo marka insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo sii gudbiya walaalihiina kale si ay uga faa'iideystaan like subscribe commentiga dhinaca xageena waa insha Allah saan oo kale waxa ugu qalooci marka Ramadaan ahaana marka hore u sameeyay saas bil Ramadaan oo kale aan sameeyay soonkii aan sameeyay saas oo qalooci aad ugu helay naftirkeyga dhowr jeer soonkii kadib hata aan sameeyay oo gabdho walaalahayga iga soo dalbadeen guriga dhexdiisa aan ku sameeysan aan cunay ma sha Allah tabarakallah aad aan wehel idinkana waa ka heli doontiin uun idin aan jimi doona rootigan san hadda aan u sameeyay noocyo badan oo sameeysan kartid hadda rabtiin pizza ka sameeysan kartid hadda rabtiin rooti caadi ah shukulaato gudaha ilmaha u gashan kartiin waxa rabtid aan ku sameeysan kartiin ma sha Allah tabarakallah habka waxa waay rootiga muhiimadiisa oo dhan waxa waay saa u qasanaysid leeyahay saa u qasanaysid haduu ku tooso kalaas waxa uu u baahan marka nooc kasta u sameeysan kartaa ما شاء الله تبارك الله مجدد وسنتيدان كل ugu shubanaya qalaas foorada gashanaysa foorada marka gashatan waxa geysanaysa 200 waxaana geynaysa 20 daqiiqo qalaas 200 aan geynay xoog inuu ka kululaado mal rabo dhaxdu ciirinkaaga naqana maahan haduu xoog ka kululaado oo kullaysid dhaxdu ciirinkaaga naqana marka iska ilaali ina u dheeraysid dabka ma sha Allah تبارك الله kana 200 geysanaysa foornada 200 geynaysa marka 20 daqiiqo gashanay foornada ma sha Allah waa kana kor hoosana shidanaysa 20 daqiiqo soo bixin hada 15 daqiiqo hadba foornooyinka ay u kala kulliyiin ku xiranta adaab arkaysid ma aha mujida oo ii soo baxay leecis fiir ma sha Allah tabarakallah goosanaya صدمة جدا ما شاء الله هذه معها مجدة ما شاء الله تبارك الله أصحابي ما شاء الله تبارك الله أرك ضي وجد وحكجر فير ما شاء الله تبارك الله أرك أستاذ عادي ما أهن أبروبينا فير 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 أستاذ سيري